إنا لله وإنا إليه راجعون لبدن ويل أياه لبا ويل أو aad ugu tabaalaysan gudaha magaalada Woodward isla markaana in muddo ku xanuunsanayay isla markaana waxa warbaahinta u soo bandhigay aabaha iyo hooyada dhalay labadan cunuge waxayna ka warbixiyeen xaaladda ay ku sugan yihiin mar aanu ka waraysanay bal xaaladda guud ee caruurtani ayaa waxay noogu tilmaameen in ay caruurtani ahaayeen kuwa markaasi mataana ah isla markaana ku dhashay qad alle waxayna tilmaameen caruurtan oo laga filaayay xilligii fadhiga iyo xilligii markaasi ay gurguuran lahaayeen habka caruurnimo in ay noqdeen kuwa dhulyaal ah waxayna gaashaanka u daruureen caruurtani in ay da'doodu gaadhayso in ka badan 4 sano waxayna tilmaameen 4 sano in ay ahaayeen kuwa dhulyaal ah aan hadlaha waxayna tilmaameen in markaasi ay dhibaatooyin aad u daran ku haystaan waxayna tilmaameen in ay isla tabaalaysan yihiin oo markaasi inta karaankooda ay awoodayeen in ay soo mariyeen dhakhaatiir kala duwan waxayna walaalahooda muslimiinta ugu baaqeen in ay kala soo qayb qaataan caruurtani daryeelkooda hagaajintooda iyo inta kalaankooda hadii ay markaasi ka warqabaan goobo caafimaad oo markaasi lagula tacaali karayo caruurtani ayaa ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Cabdiraxmaan Ciise oo kamid ah culimo baladka deegaanka insha Allah taala waxaanu dadka muslimiinta meel joogaanba si naxariis leh aan uga codsanayna inay qoyskaas labada ilmood yar ku dhibaataysan in ay wixii awoodooda ay ka soo caawiyaan iyo sidii dhakhtar meel oo lagu la soo qoosan lahaa hatta nolol ahaan iyo awood ahaan waa heer danyara oo aad arkaysaan meesha ay ku jiraan awoodna aan u lahayn maana waxa weeye noloshooda iyo maartay wax kale iska daayay noloshooda in awood u lahayn meel ay dhakhtar ku geeyaan iska daayay ruuxantii rasuulkeena ama islaamku wuxuu qabaa inuu sunna xariisto rasuulkeena wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi ilaahay adoonkiisa kaalmiisa iyo naxariista ayuu ku jiraa inta uu adoonku walaalkiisa kale uu kaalmaynayo caawinayo dankiisa isna halkaasi waxa ka hadlay aabihii dharay caruurtani inta ka bacdi dadka na daawanaya ee ummadda muslimka ah na daawanaysa waxaanu samafalka jecel ee sadaqada jecel waxaanu marti uga nahay oo aan ka codsanaynaa inay wixii caawimo ah iyo wixii sadaqada de waa ku baxaysan dadka ay arkaan noocaas baaralayska inay wax ku soo sadaqadeystaan waxay ku soo sadaqadeysanayaan de ama dhakhtar ha u noqoto de ama de dhaqaale kale ha u noqotay waatan hooyadii dhashay caruurtani oo iyadoo markaasi aad u qiiraysani dhowr kalmadood naga siisay faahfaahin caruurtaasi ku saabsan dhaawacan ka muuqda kan muxuu yahay haween markuu maartay ooye ama gaajoodo ama sidiisa u ooyo gacmihiisa ku dhigaya sax ku dhigaya waan gartaa saa gacanta waxa laga duubay maro halkaas maro kaga duuba waan gartaa dadka waxaan si dacad ku soo goosanaya baan isku soo wada duubo caruurtani ayaa waxa baaq loogu jeediyay walaalahooda muslimiinta ahay in ay ku soo eegaan il naxariis leh Cabdi Ciro Somsa TV degmada Woodward